reer galbeed maalintuu yimi caalamka gumaystay shay quru ku dadaalay inuu sharciga dhaqanka ka saaro dabeetana Indian Penal Code iyo qaanuunkiisa inuu keeno laakiin dadka weligii uma diidin in masaajida la galo waayo wuxuu isir xagga way kici doonaan hadaad gasho marka masaajida iska galaan dumarka say doonayaan ha u guursadaan ha dhaxladaan laakiin maamulka ayay soo hadal qaadeen maamulku in Ilaahay loo hogaamiyo taasi meesha uu imanay gaalku wuxuu burburiyay waxa ay khilaaf islaamiga taasi buu ku guuleystay ilaa haddana guushiisii wuu sitaa oo gaalkii hore markuu tagunba gaalka loo madoobi ku fuula midabkuunba isbedelay maalin dhaweydba halka waxaan ka maqlay gabay nin Soomaaliyeed malaa uu lixdanadii tiriyay oo kaga hadlayay waxa isbedelay Ingiriiskii iyo qoladii kale wuxuu tilmaamayay inaan waxa isbedelay aanu nidaamkii ahayna waxa isbedelay inuu raggii u lahaa ninkii cadaanayn daaqada laga saaray ninka loo madowna isma doorin gaalkaan diriyo daafta kii koraya dusha midabka Soomaaliba diirka mood yani erayaha buu tilmaamayaa in waxa isbedelay